kulanti waxaan wanaagsan idinkiiba meel walba joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka bandhig garaj qodobo xiiso badan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada aad ku daaban doontaan waxaa ka mid noqonaya naadiga akhriska xamar ayaa soo bandhigay buug uu qoray qoraa daa'ir ah sidoo kalena akhris wadareedka ayaa lagu sameeyay beerta nabadda ee magaalada muqdisho sidoo kale qodobada aad ku daaban doontaan waxaa ka mid noqonaya waxaan ku hayaa macallinkii dugsiga hoose dhexe ahaa ama bareeka ahaa oo madaxweyne ka noqday mid ka mid ah wadamada dhaca koonfurta America haddaba waa kee barnaamijka ayaa saaka qodobada xiisaha badan aan idinkugu soo gudbin doono uu ka mid yahay soo kale waxaad ku daawan doontaan baaritaano la sameeyay ayaa lagu ogaaday daawada dhirta in ay isticmaalkeedu tahay mid aad halis u ah sababo oo dahsoon ayaan ku hayaa oo baaritaankan laga soo saaray ee barnaamijka ayaana ina ku daawan doontaan haddii rabbi laga helo sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xubintii haweenka iyo hal abuurka oo aan kaga hadli doono haweenka ganacsatada ee qayb ka ah barnaamijka qodobada ay kuba kale aan idinka qarinayo ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Ashraf Abdulbasid Macallim Xasan Cabdisalaam Axmed Dhiblaawe farsamada kaamirada ayuu gacaniga siinay wala mar kale iyo barnaamijka bandhig garaj markale saarag jecdoon daawadayaal qodobadii ku door corona barnaamijkana ayaad saaka daawateen markana ayagoo inta ka sii faahfaahsan ku soo dhawaada kuna soo sheekha markale qodobka ugu horeeya barnaamijka ayaan soo qaban doonaa naadiga akhriska xamar ayaa soo bandhigay buug uu qoray qoraa daa'ir ah si lamidana waxaa lagu sameeyay beerta nabadda akhris wadareed oo buugana qayb ka ahaa qodobka ayaa ugu horeeya ka bogashawa akhris wadareedka iyo bandhigga buugga gardaadiya uu qoray qoraa daa'ir ah keena soo qaybgaleen dhalinyaro ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay beerta nabadda naadiga akhristayaasha xamar ayaa soo qaban qaabiyay madashan lagu soo bandhigay buugga gardaadiya waxna goobjoog ka ah madashan gudoomiyaha naadiga akhristayaasha xamar injineer Cabdiraxmaan Ibraahim Faarax gudoomiye ku-xigeenka naadiga Dictoresa Bahji Cabdilaahi Salaad xogayaha naadiga Dr. Cabdiqani Carfaaye qoraa Cabdikariin Gruun iyo waliba qoraaga buugga lagu soo bandhigay madashan Xasan Cabdulle Cali Sow Shirmaal mas'uuliyiinta iyo qoraaga buugga ayaa ka hadlay madashan oo ay isugu yimaadeen dhalinyarada ka soo qayb gashay akhris wadareedkan iyo bandhigga buugga horta buugga gardaadiye waxa qoray qoraageena weyn Ilaahay sharfe Xasan Cabdulle Cali Sow Shirmaal oo inooga yimid dalka Sweden runtii waa maskax oo inoo soo miiday waa dadaal badan juhdi badan oo maalmo badan iyo habeeno badan uu soo jeeday ayaa maanta Muqdisho inala jooga waa soo dhaweynaa runtii aadan waa ugu faraxsanahay inuu na soo gaarsiiyo book standardkii ugu dambeeyay buugan waxa la yiraahdaa gardaadiye waana magac ku haboon runtii iyo sheekooyinka ku jira markaad akhriso buugan wuxuu ka kooban yahay 143 book ayuu ka kooban yahay waxa ku jira 25 sheeko caruureed oo qayb weyn ka qaadanaya barbaarinta ilmaha af Soomaaliga ku qoran buugani waa mid fudud oo si degdega loo fahmi karo macnaha uu buugu xambaarsan yahay buugan waxa lagu tala galay ilmuhu markuu dhasho ilaa 10 jir wixii ka hooseeya ayaa aad barbaarinta uu buugan qayb weyn uga qaadanaya waxa laga ilaaliyay kelmado cusub oo u baahan in fasiraad badan loo sii galo marka luqadda buugan ku qoran waa luqadda abwaanku runtii soo xulay waa luqadu dhinac walba ka seego waa luqad fudud oo aabaha ama hooyadu ilmaha u akhrin karto ilmahana ay dhexdooda akhrisan karaan waa luqad runtii aan aad u jeclaysay aadna u fudud buuggan waxa la daawacay 2020kii waxaan lagu daawacay qurbaha dalka Sweden
haddaan ka hadalno muuqa guud ee buugga waa mid noocee ah. Buuggan waa buug sawiro leh oo gudaha ay ku jiraan sawiro badan oo ku habboon sawir walba ku habboon mowduuca ama sheekada uu ka hadlayo. isla markaana buugga sheekooyinka ku jira waa sheekooyin color leh oo si fiican ay caruurtu u arki karaan. Okay, jaldigu waa mid culus. jaldiga buuggan saad ka arkaysaan waa mid culus. taasina waxay keenaysaa buuggan inuu muddo sii jiro, maadaama buuggan caruur loogu talagalay maaha buug markaaba baaba'aya ama markaaba halaabaya. waa buug muddo ay ilmuhu haysanayaan. Okay, buuggan sidaad arkaysaan standardkiisu waa standardka daawacadda caalamiga ah. wuu ka duwan yahay buugaagta kale ee maanta aynu Muqdisho iyo meelahan Soomaaliya gudaha ku haysano. sidaa daraaddeed buuggan wuxuu la jaan qaadaya standardka caalamiga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore ilaahayba mahadle. mar labaadka waxaan aad ugu mahad celinayaa qoraaga buugga. marka saddexaad waxaan salaamayaa dhalinyarta kala duwan ee kala fadhigan ka soo qayb gashay oo rag iyo dumarba leh, isugu jirta qorayaasha, mufakiriinta iyo dhalinyarta soo socotaba. aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba. waxaan idin leeyahay salaamu allaahi calaykum. anigoo ku hadlaya afka naadiga ahna naadiga madaxiisa ama guddoomiyaha. kolley Soomaaliduna tiraahdo madax meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto, laakiin maanta waxa iga sarreeya ama iga mudan buuggan hortayda yaalla oo anigana ay keenay, idinkana idin keenay, dhammaanteenna ina wada keenay goobtan inaynu ku midowno oo aynu ka hadalno. maadaama uu naadigu ku magacaaban yahay ama naadiga akhristayaasha xamar kalfadhigan la hor fadhiyo, haddana waxa mudan oo mudnaanta la siinaya buugga iyo bulshada kala duwan ee ka soo qayb gashay madasha lagu gorfaynayo, lagu soo bandhigayo, la iskula eegayo, lagu falanqaynayo buuggan magacaweyn gardaadiye, bambixiye, afartan bixiye, qofba sidoo yaqaano, oo cunuga waqtiga yar yahay ee la gardaadinayo 40 cisho dhamaysto ilaa iyo inta uu noqonayo qof isagu iskeena oo gacantiisa biyaha kaga dharga. aniga ka guddoomiye ahaan markii aan buuggan akhriyay, walow anan maanta hortiina intaan la imaado aanan lahayn 1 iyo 2 iyo 3 qaybaha hore ee buugga oo ay aad iga soo jiiteen sheekada koobaad oo ka bilaabmaysa page-ka 8aad iyo sheekada ugu dambaysa oo anigu inta aan hadda ka qaatay 8 sheeke ugu horeeya, iyo dhammaan buugga waxa uu iga anfacay oo aan aad ula dhacay. waxa ku qoran waa diin iyo dacwo, bakayle iyo dameer, libaax iyo shabeel, laakiin way ka fac weyn tahay ama way ka ujeedo badan tahay ama way ka mirar badan tahay, oo waxa loo baahan yahay in ay hooyadu cunugeeda qaabka ay u barbaarinayso ugu tixgeliso. haddii aynu isla eegno sheekada koobaad oo kale, been baro ama beec baro baa ku yaalla. sheekada koobaad oo ku taala page-ka 8aad ee buugga, macnaha ujeedka uu soo qaatay abwaanku ma aha ilmaha laleey in laga wado baro beenta, qaabka beenta loo barto ma aha. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa Bahja Cabdulaahi Salaad, kana tirsan bahda naadiga akhristayaasha xamar. maanta naadiga akhristayaasha xamar halkan wuxuu u joogaa beerta nabadda in aynu falanqeyno buugga gardaadiye uu qoray xasan cabdulle caali sow shiribmaal. waa qoraaga buugga. kanaadi ahaan maanta farxad weyn ayay inoo tahay in aan maanta halkaan iskugu nimaano. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibadii ka soo qayb galay madashani aadka u quruxda badan. dhammaantiin waa mahadsantihiin. mar kale anigoo Bahja kana tirsan naadiga akhristayaasha xamar, waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka naadiga akhristayaasha xamar. farxad weyn ayay tahay maanta inaan halkan joogo. naadiga akhristayaasha xamar wuxuu u taagan yahay garab istaaga bahda jiilka soo baxay qorayaasha Soomaaliyeed. naadiga sidoo kale wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta dhalinta daneynaysa inay qoraan ama ku guda jirta buugaagta ama rajaynaysa in ay qoraan buugaag. naadiga haddii jarab wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed. farxad weyn ay tahay inaan ka mid ahaado. sidoo kale galabta maanta waxaan u taaganahay in aynu falanqeyno buugga gardaadiye uu qoray xasan cabdulle caali sow shiribmaal.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo maamulka iyo madaxda guud ahaan naadiga akhristayaasha xamar waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan dabadeed waxaan idinka mahad celinayaa madashaan quruxda badan oo run ahaantii sida degan oo milgaha iyo maamuus kale aad uga soo qayb gasheen lagjaradii la soo jeedinay aad u dhegeysateen oo maaragtaa si fiican loogu falaqeeyey waxaa kaloo mahad celinaya run ahaantii yani culimmadii falanqaysay oo si mugle oo miisaaman u dul istaagtay maaragtaa dhiganaha gardaadiye run ahaantii hawsha ay wadaan naadiga akhristayaasha xamar ayaa waxay tahay gardaadin yani gardaadinta qayb ka mida waaye oo yani gardaadintii maskaxda waaye kanna waa gardaadintii oo barbaarinta marka run ahaantii aad iyo aadaan idinka mahad celinayaa waa maamuusantihiin ee mahadsanidina idin leeyahay dhanka kale haddaan yani wax yar ka idhaahdo yani maaragtaa akhriska iyo muhiimadda uu leeyahay horta qofkii wax qoray waxaa ka horreeyey akhris badanaa ka horreeyey marka qofku markuu wax badan akhriyo ayuu wuxuu qori karaa yani ayuu wuxuu macnaha wax qori karaa waxaa la yidhaahdaa weelku markuu buuxsamo oo yani galaaska marka wax lagu shubo buuxsamo yani way ka daataan haddii aan laga dhaafin markay akhrisuna waa saasoo kale qofku marka intay wax akhriso oo akhriso marka dambe wixii dibadda u soo baxaya yani aqoontii iyo wixii ay kasbatay ayay dibadda u soo saaraysaa marka run ahaantii yani akhrisku faa'iidada uu leeyahay waa wada garanaynaaho yani marka haddii diin la yidhaahdo iyo haddii maarata maadi la yidhahdaba muhiimadda uu leeyahay waan wada ognahay waxaa la yidhaahdaa yani qof kaad horreysa oo amba aqoon kaaga horreysa amba dhaqaale kaaga horreysa amba si un kaaga horreysa waxaad ku dhaafi kartaa waa akhriska kaliya inaad wax akhrisa ku dhaafi kartaa marka run ahaantii yani qofkii tusaalo kale qoftii dhakhtar soo barta oo yani hal qayb uun soo barta amba hal jaanib haddii uusan ku darin akhris iyo yani muraajacin uusan ku darin yani qaybtaas unbuu yaqaanaa yani inta kale ma yaqaano marka run ahaantii akhrisku waa waxa kaliyahoo maskaxda bini'aadamka waxaa la yidhahdaa qaanaday leedahay yani maaragtaa oo kala gogo'an qaanadaas marka waxaa la yidhi waxa lagu furi karaa amba lagu buuxin karaa waa akhriska oo yani maaragtaa maskaxda furi kara bini'aadamkuusu waxaa la yidhi suu raashinka ugu baahan yahay iyo cunnada iyo cabitaanka ayuu akhriskan ugu baahan yahay run ahaantii dhammaantiin waxaad tihiin qorayaal waxaad tihiin akhristayaal waxaad tihiin dad yani maaragtaa aqoon-yahanoo inaan macnaha cashir idin jeedinaya ma aha laakiin waxbaan kala faa'iidaynaa akhriskana muhiimadda uu leeyahay waad og tihiinoo yani wixii ugu horreeyo ilaahay ku bilaababa akhri ahaayeen yani maaragtaa amba qalinkay ahaayeenba oo maarata marka adduunyada la uumayana qalinkaa lagu bilaabay marka hadda ka ummad ahaan oo hadda ummadda nabi maxamed waxaa la yidhahdaa waa ummaddii tobaatay labade yani ummaddaas markii waxay u soo degayana akhriyaa laga bilaabay iyo macal qalinkii oo la socdo yani callama bilqalami aayadda ku jirto marka run ahaantii cibaarada markaad diinta fiiriso qaabka loo gedgediyo oo yani diinta u gedgedinayso yani akhri iyo qor iyo qalinka iyo kitaabka yani saddexda was wadaan buuggii iyo qalinkii iyo akhrintii waa wax aan kala harin oo wada socda aan ka gudubno qodobkaasi qodobkii ugu horeeyay ee barnaamijka markana qodobka xiga ee barnaamijka ayaan soo qabanayaaye waxaan ku hayaa sheeko ku tacalluqaysa macallin bare ka ahaa qaybta dugsiga hoose iyo dhexe hadda se noqday madaxweyne mid ka mid ah wadamada ku yaala koonfurta America haddaba waa kee sheekadan oo aan idin soo xulnay ka bogasho Pedro Castillo oo ku dhashay tuulo yar oo ka mid ah kuwa ugu asaboolsan Beirut ayaa waxa uu ku soo barbaaray inuu waalidiintii aanan waxba baran ka caawiyo shaqada beerta markii uu ahaa arday da'yar ahna waxa uu in ka badan 2 saacadood u lugeyn jiray iskuulka ugu dambeyntii waxa uu noqday macallin iskuul shaqada oo uu hayay muddo 25 sanadood iyo waliba hogaamiye urur oo dadku ku mideysan yihiin ninkan oo awood la wareegay isagoon wax khibrad ah u lahayn xafiiska ayaa 2021 waxa loo doortay madaxweynaha Beirut iyadoo ay gadaal ka riixayaan codbixiyaasha tuulada uu ka soo jeedo ma ogolaan doono in qof sabool ah laga helo dalkan qarniga ay ahayd firintiisa joogtada ah ee uu ololahiisu ku soo gudbin jiray marka uu ku tilmaamayay sida uu ku faahfaahina dadka dhibaataysan ee Beirut waxaana garanayaa sida loogu dhidido markii iskuulka loo lugeynayo ayuu mar qura yiri isagoo ku tilmaamay inuu yahay qof dadka kamid ah ayaa waxa
arkay in Master Castillo la arko isagoon xirnayn dharka cadcad ee hidaha iyo dhaqanka koofida laga xirto gobolkiisa lagu magacaabo Cajamarca iyo waliba qoriga waxa lagu xardho oo waaweyn kuwa oo asaan u ahaa xisbiga Marxist Free Peru arintaas oo sidoo kale matalaysa waxbarashadiisa wuxuu ku doodayaa in dalkaasi aanan lagu maareyn jirin danaha inta badan dadka dalka wuxuuna ku baaqay in isbedel weyn la sameeyo si wax loogaga qabto saboolnimada iyo sinaan la'aanta oo ay jiraan codsi muran badan dhaliyay oo uu ku doonayo in la qoro dastuur cusub dadka ka soo horjeeda ayaa waxa ay isku dayeen in ay ku aseeyaan in uu yahay xagjir dhanka bidix oo xiriir leh kooxaha shuuciyiinta ee door ku jirta arinta oo gaashaanku u daruuray hadalkiisa waxa uu ku xakameeyay hase yeeshee dadka naqdiya waxa ay ka walaacsan yihiin in qaar ka mid ah qorshayaashiisa ay suuragal tahay inay wax u dhimaan waxa ka mid ah hadalka degan Latin America madaxweyne Castillo oo canuga saddexaad ee qoyska ka kooban 9 caruur ayaa waxa uu 19 Oktoobar 1969 ku dhashay Puna waxa uu macallin dugsi hoose dhexe ah intii u dhaxaysay 1995 ilaa 2020 waxa uu siyaasadda galay 2002 marka oo uu ku guul dareystay maayirnimo oo u tartamay waxa uu markii ugu horeysay ku soo shaqbax 2017 markaas oo ay macallimiintu shaqo joojin sameeyeen iyagoo ka cabanaya mushaarka iyo qiimeynta hawsha ay qabtaan waa tahay daawadayaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka bandhiga rajo qeybii dhexe barnaamijka ayaana ku sii shaqeynaya qodobka xiga ayaan soo qaban doonaa waxuuna qodobkani tilmaamaya baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in halista ay leedahay isticmaalka daawooyinka dhirta ay tahay mid aad u badan baaritaankan oo muddo qaatay ayaana ugu dambeyn la soo gabagabeeyay sida lagu soo saaray iyo xogta oo kaamil ah ayaana kugu dubi doonaa wili waxa uu ahaa oday Shiinees oo goob cilaaj ah ka furtay magaalada Myantaga ee dalka China waxa uu dadka ku daweyn jiray dhiro kala duwan sanadkii 1980 ayaa la xiray iyada oo lagu eedeeyay tuugo muddadii uu ujeedku ku jiray ayuu sameeyay fikrado cusub sanadkii 1993 oo ay jeelku ku sameeyay tababar noocyada dhirta sida la isugu dabeeyo haddaba sanadkii 1997 oo ayd markii uu jeelka laga sii daayay waxa uu markiiba furtay xarunta cilaajka isku dabeynta dhirta iyada oo ku furay gobolka Ashanti Huwilun ayaa haba yaraatee muusan ahayn mid haysa ruqsad caafimaad oo dawladdu bixiso sanadkii 1999 ayaa la xidhay markii dad badan oo caabanaya ay u sheegeen dawladda inuu siiyay dhir uu daba ugu sheegayo oo ay u dhinteen dad ehladooda baaris la sameeyay waxa lagu ogaaday in dad gaadhaya 150 qof oo uu siiyay dhiro kala duwan oo aan ku haboonayn dhammaantoodna u dhinteen isticmaalka dhirtaasi odayga ma lahayn aqoon caafimaad isla markaana mu haysan ruqsad maxkamadda ayaa ku xukuntay sanadkii 2000 xarig 15 sano ah iyo ganax lacageed oo aad u badan dadka u dhinta sababo dawooyin laga siiyo goobo aan aqoon caafimaad u lahayn ayaa waqtigan ku sii badanaya dunida inteeda caafimaad ay aad u hooseyso waad daawadayaal xubintaas ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeena Nasaaka inta uu habada ka baxayay waxa idin la socodsiinayay anigoo أشرف عبد الباسط معلم حسن عبد السلام أحمد دبلا وفرسمدي كاميرا يوقع عن يقصي إن شئنا برامج عين كانوا كلاه كنا حيس بدن كل من دونه وصاحب كنا أشرف وإذن كقطع يسلاسي أمان ربي